gudoomiyaha degmada Duruqsi Axmed Cabdilaahi Gaabiyo maanta saxaafadda kula hadlay magaalada Burco ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ahaaneed ee degmada Duruqsi oo kamid ah deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer iyo horumarada kala duwan ee ka hana qaaday gudaha degmada Duruqsi. waxaan oran karaa qof kastoo Soomaaliland waxaan jecelahay oo dareemaya ama gobolka Togdheer inuu degmada Duruqsi ugu yimaado inuu eego halkay degmadu taagan tahay. waxaan qabaa gobolka Togdheer degmadu inay tahay wax qabadka xukuumiga kuwa ugu horeeya ee xukuumaddu ay wax ka qabatay Soomaaliland. inta uu joogay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Xuseen waxaan cadeynayaa degmadu waa tii darajadeedu marka ay dhigtahay 8 wasaaradood ayay xaq u leedahay qaranku inay u soo qadimaan adeega bulshada ay u hayaan 8 digo weeyaan waxa uu dheer customka iyo immigrationka oo loogu talagalay inay noqoto meel laga talaabo waan degmooyin kale ee xadku aan lahayn aniga iyo Togwa Jaale iyo degmo kale mooyaan taa waxaan cadeynayaa dadka beer abuurka sameeyay waxay leeyihiin Duruqsi way baabaaday way ka hadhay degmooyinka waxaan leeyahay waa warbeena oo waxba ka jirin waa degmooyinka qura ee qaranka Soomaaliland ama jamhuuriyaddu ay wax ka qabatay. sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu ka hadlay warar dhawaanaha ee qoreen qaar kamid ah warbaahinta Soomaaliland oo sheegay inay ka jiro degmada Duruqsi musuqmaasuq waxaana wararkaasi gudoomiyuhu ku sheegay kuwa aan sariya raatoon lahayn isagoo saxaafadda Soomaaliland ugu baaqay inay hubsadaan waxyaalaha ka jira deegaankaasi. halkan maanta waxaan runtii aan u taagnahay inaan bayaamiyo warar badan oo beena oo degmada ka baxay oo ay ka bixiyeen dad aan waxna ogeyn waxna hubin waxna ka xishoonayn taas oo leeyahay waa dembi ku ah deegaanka iyo aniga iyo qarankaba oo waxaan ka digayaa oo aan leeyahay qof kasta oo shakhsiyada noocaas ah ee ku kacaya inuu ka been abuuro xaaladaha degmada ama madaxda ama wax qabadka ka jira dhulka Soomaaliland ka jira inuu ka been abuuro waxa leeyahay waa dembi qaran weeye anigoo runtii aan lahayn waan ku gungaaraya ama dembi qaran baan ku qaadaya waxaan warbaahinta siinaya in laga digtoonaado oo shakhsiyadka noocaasi ay iska daayaan waxaan qaranka iyo dalka iyo madaxda toona qaban. si kastaba haatee shirkani jaraa'id oo maanta ku qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer gudoomiyaha degmada Duruqsi oo ka tirsan deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer ayaa ku soo beegmaysa kadib markii maalmihii ugu dambeeyay warbaahinta qaar qortay warar sheegaya in degmada Duruqsi ka hadhay horumarka degmooyinka kale ee Soomaaliland isla markaasina lagu eedeeyay musuqmaasuq baahsan. Khalid Bakeele, shabakada caalamiga ee Ictiraaf News, Burco.